السلام الله عليكم أصحابتي ذا. salaamaya dhammaan Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan qaasatan team Zaki bin Xaaji waxay idin saraakiisha wadaan ninkii Sharma Boy ahaa. Sharma Boy in the building. xaalado fara badan. Team Sharma Boy, team saraakiisha. waxyaalo fara badan ayaa maanta ogaan doontaan. kamida mataqaanaa sida heesta waayo oo videogeeda mataqaanaa xaqiiq marka laga hadlo nolosheeda video isbuuc ma duubin laakiin videogaas ina isbuuc waqti ah galiyaa faahfaahin badan ma galayno barnaamijka si aan idinkaga hor dhicin oo kuleylkiisa aad u gaartaan. haddii aan ugu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin, like taada waa codsi, commentigana fikirkaana ugu leedahay kusoo dhawaad barnaamijka faahfaahsan. inta aan barnaamij u gudgelin marka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo dhammaan saraakiisha wasaaradda tiimka meeshaan cimaamaday ee meeshaan subscribe saartay ee meeshaan gurigaan dhistay. waxaan rabaa 100 kun markii aan gaaro hambaliyada ama tahniyada la isoo tahniyadeenayo. idinku waxaa arki jirteen dadku markii 100 kun gaaraan asxaabtooda caanka ah inay usoo hambaliyayaan kadib ay muuqaal ka soo sameeyaan. aniga waxaan ku soo kordhinayaa in saraakiisha WhatsApp-ka halkaas ay idin soo dhigay qof walba oo sarkaala meeshuu ku nool yahay meeshuu adduunka ka joogo in uu muuqaal isoo duubi karo 10 second ama 20 second si dad badan aan uga sameeyo inuu 10 second ilaa 20 second uusan ka badanin. inaad lambarkaas ku soo dirtaan dhahdaan war wasiir waa sarkaal ku nool meeshaas iyo meeshaas goobta aad joogtid muhiim waaye waa sarkaalka la soo hadlay meeshaas iyo meeshaas. waxaan ku leeyahay sarkaal wasiir guuleyso hambalyo saraakiisha waxaan leeyahay 100 kun waan ugu yartahay 200 kun han laga qaabkaas macnaha WhatsApp kaas ku soo diri kartaan. idinka meeshaan dhis idinka ma idinka tagaa yani hambaliyada see idinkaga tagaa meeshaan dadkii dhistaatiin bay dadku soo dhiidaatiin bay sarkaal kasta u baahan inuu soo hambaliyo halkan ka soo muuqdo WhatsApp kaas noo balla. Sharma Boy in the building. ninkii Sharma Boy ahaa oo noloshiisa Zambia hadeer ay gabagaba ku dhowdahay oo rajeynaya dhawaan insha Allah inuu wadamo kale cagta mariyo laga yaabo xataa tour inuu qabto showyaha uu dhulka ku maro axwaal fara badan baa idin soo wadaa. laakiin se waxaan rabaa horta xog muhiim ah oo asagana uu jeclaystay anigana aan jeclaystay in bal horta dadka la wadaago inaan la wadaago. bal marka hore horta Sharma Boy qaabkii aan isku qabanay iyo soo dhaweyntii iyo salaantii saraakiisha iyo team Sharma Boy hal mar aan ka gudoono horta. walaalkayga Zaki bin Xaaji ugu horeyn waxaan salaamayaa team Zaki bin Xaaji meel walba ay joogaan iyo team Sharma Boy iyo team Wisbi dad isku xiran oo isku dhownahay asxaab dhamaantooda horta marka ugu horeysa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan ku salaamayaa dhamaantooda madaxa iyo wada saaran yihiin de wareysigaana de waxaa la dhihi karaa wareysi ku saabsan team Sharma Boy iyo Zaki bin Xaaji iyo Wisbi adiga team saraakiisha lagu soo koobi karaa wareysi ku saabsan waaye aad baan u faraxsanahay mataqaanaa inaad wareysi iga qaado waa waxaan ku faanayo mar labaad mar saddexaad mar afraad mar shanaad baa waxaan salaamayaa dhammaan Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan qaasatan team Zaki bin Xaaji saraakiisha away team Wisbi team Sharma Boy aad baa u salaamayaa dhamaantooda meel walba ay joogaan ciyaal xamar I love you aan leeyahay ciyaal xamar waa leedo jecel yahay xataa saraakiishan kaalmo muhiim ah wasaaradda ka hayaan xafiisyo qatar ah xafiisyada badana kor ayaga fadhiyo ciyaal xamar waa in salaam ciyaal muqdisho waaya. waxa isweydiin mudneed ama aan weydiiyay markii ugu horeysay dabcan wareysigu waa anagoo sheekeysanayno wareysigan ka soo dhaxbaxay kadib su'aalihii muhiimka ahaa aan qortay aan weydiiyay su'aalihii muhiimka ah markii iga jawaabay wareysigu wareysi sidii waagi hore alaabta old version television intii la soo bixiyay isdhahay ma su'aasha weydiinta mudneed waxay ahayd Masami Logistics Limited markii Asambia tagtay aniga waxaan u maleynaa studio Masami Logistics Limited u maleynayay macnaha nimankaas madowga oo leeysa studio inuu show u sameeyo wuxuu ii sheegay inuu studio ahayn ee qofka noloshiisa baal dahaba ku jiro abaalku ugu weyn ku leh oo Zambia markuu tagay inuu 8 heesood muddo bil ah uu soo saaro ka dambeeyay noloshiisa oo dhan gacanta ku hayay hadduu mustaqbalka xataa uu qof abaal u gudayana qofka ugu horeeya abaal u gudayo uu yahay. aniga marka qofkaas ma ogeyn arintaas oo dhan ma ogeyn waa arinta ugu dhalisay marka inuu la aamusnaanin ee uu la soo wadaago xaaladiisa maadaama hadda noloshiisa Zambia ay gabagaba tahay. marka ninkaas aan weydiiyay waxa lagu magacaabaa Maxamuud Shii Aadan Jamuux uu ii sheegay bal Jamuux waa qof nooc ma saaxiibkayga qaali ah marna walaalkayga waaye marna adeerkayga waaye marna ina adeerkayga waaye marna taageerahayga koowaad qofka aan dhihi karo waaye Jamuux oo aan jeclahay maanta maxaa la yiraahdaa qof walba mataqaana aniga taageero ama qof walba igu xiran oo aniga ay aaminsan
aan jeclahay inuu aaminaa because waa qof aan aaminsanahay, waa adeerkay, mas-uulkayga. haddii la dhahana ninka Zambia igu haayo mataqaanaa madaxa ii saaran aan aad ku aaminsanahay mas-uulkayga Maxamuud Sheekh Axmed Jamuux kal ilaaba baabiza. wax sahlan ma aha in muddo markaa tagtid wadan qurba ah oo waliba qurbaha sida Ethiopia iyo Kenya Soomaali badan oo ku nool iyo Djibouti wadan Soomaaliyeed laakiin Kenya iyo Ethiopia wadamo badan oo ku nool dad badan oo Soomaaliya ku nool laakiin Zambia oo kale oo Soomaalidu ay aad ugu badnayn marka aad tagtid isla markiiba ina hadana heeso talantaaliya inaad soo saartid way adag tahay marka waxyaalihii uu ka caawiyay heesihi aan isdhihi karno gacan buu ka geystay maxaa kamid ah Sharon Boy oo weydiiyay mataqaanaa heesaha oo mataqaanaa inay soo baxaan oo aan mataqaanaa ama video ama lyrics aan kusoo daayay waqtiga iga galay oo mataqaanaa uu Jamuux garabka igu siiyay waxaa kamid ah mataqaanaa sida heesta waayo oo videogeeda mataqaanaa xaqiiq marka laga hadlo nolosheeda video isbuuc ma duubin laakiin videogaas ina isbuuc waqti ah galiyaa oo mataqaanaa ninka ka dambeeyay heesta dhaayinka afkaas waxa mataqaanaa oo ka dambeeyay stuudiyaha inaan tago oo dadkan isku ka soo xiro waa Doob Boys mataqaanaa ninka isku keen soo xire aniga iyo Bluesy ninka isku keen soo xire adiga de inaan waxay dadka iga barteen soo gudbiya markaan Zambia imaado mataqaanaa ninka garabka igu siiya aan kaga mahadnaqaayo 100% waa Maxamuud Sheekh Axmed Jamuux loo yaqaano oo aan aad aniga laftikaygu aaminsanahay oo taageersanahay maadaama qof taageersan uu yahay kasuko adeernimo iyo ehelnimo iyo tolnimo xagga markii la dhigo de qof taageerahayga ah oo madaxa ii saaran uu yahay aan aad ugu faraxsanahay qof aan weligay ku faanayo su'aasha ugu dambaysan weydiiyay marka waxay ahayd maadaama hadda uu gudbayo warbixinta qaybteeda labaad dadka lagu magacaabo Team Sharma Boy dunida dhacaladeeda ku kala nool mar walba ninkan horumarkiisa jecel waxa ugu dambeeyo Jamuuxe oo mar walba noloshaada inay ku qurxiyaan diyaar kala abaal noocee u haysaa shakhsi ugu dambeeyay hadda aan tilmaami karaa waa Jamuux oo wadan ku nool Zambia kaalinteebu say hawsha uu qabtay ee kalgacalka lahayd ee walaaltinimada lahayd hawsha uu ku qabtay kaalinteebu galaayay aan weydiiyay jawaabtiisa marka waxay ahayd horta taageerahayga Team Sharma Boy laba soo koobi kara team lagu koobi kara baan mataqaanaa dad yar waa la dhigi kara baaha waa dadka maanta haddii la dhaho Somali music waxa waaye meel fiican ay xaniyaha kaga fadhiyaan Team Sharma Boy waana u mahadnaqayaa mar walbana waa ogahay waana idin la socdaa hana ogaadaan mar walbo Team Sharma Boy dhiirigelintooda in aan aniga wax ku noqdo mar walbana inaan hadalkooda iyo commentigooda iyo mataqaanaa sida dareenkooda igu soo gudbinayaan in aan wax fiican u soo gudbiyo aan mataqaanaa aad ba ugu mahadnaqaay shakhsi walba meeshuu joogo iyo wuxuu ku sugan yahay in noloshuu ku jiro soo doonaba ha ahaade waa uga mahadnaqaaya markii laga soo taganiyo abaal markii la dhaho horta dhammaantooda Team Sharma Boy abaal bay igu leeyihiin because ayaga wax iga dhigay kurti guud ahaan de marka mana la dhihi karo mataqaanaa taageerayga ugu weyn hebel waay laakiin qofka markuu qofka la kulmo uu qof wax ka sheegi karo laakiin xaqiiq qofaan la kulmay oo mataqaanaa si bilaa hagar ah oo walaalnimo ehelnimo taageero muuqdo ee ku jirto maanta ay garab qabtay wallahi waa Jamuux baa dhihi karaa marka laga tago xagga waaridkayga walaalahayga de xagga markii la iska dhigo asigana de marka waxa la dhihi karaa walaalkayga qaaliga ah maxaa la yiraahdaa de mataqaanaa qof waxa jiro hadee dadka isku mid ma ahna qofna wuu ku taageerayo wuu ku daawadaa heesaa wuu ku xiran yahay qofna wuu ku taageerayo wuxuu jecel yahay asoo ku taageero inuu mataqaanaa haddana meeshuu kula taageero in ay gaartid rabo marka wuxuu ka mid yahay dadka nolosheeda ku faraxsan horumarkayga intaba ana dhihi kara maanta Team Sharma Boy hadii gudoomiye u sameeyay leeyahay ani waxaan u sameyn lahaa ninka la yiraahdo Jamuux aad baan u salaamayaa dhamaantooda waa in salaamayaa Team Sharma Boy meel walba aad joogtaan Soomaali weyn I love you so much abu ingiriiskan hadda idin bartay هذا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله وسوماليدو ay dhahdo qofkan ilaahay dadkiisa u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo ana qofka haduu abaal loo geysto mar walba inuu mahadnaqo wax qurux badan sidoo kale ilaahayna wax mahadnaqin wax qurux badan
محمود الشيخ أحمد الشيخ آدم جموح سلام الله سعيبك from زامبيا آدي أدبكو سلامي عدد ميل لقى لسو حرير ملي جموحو وحوايد اللي يرفر بدنو زامبيو فنانين فر بدن زامبي إيمان ليت اللي يرفر بدنو شقاك شو دون ليت ميل لقى لسو حرير مالها انستغرام يهدو نظام إيو حجران بل أنا قدال إنك يكي ندور مفهمت اللي كاسو نوضي واي كلي وا آدي أدبكو سلامي واتهي سيدو كلي waxaan intaas marka kadib aan ka gudubnay arintaas maadaama uu soo hadal qaaday uu abaalkaasna rabo inuu ninkaas u galay inuu rabo inuu abaalkaas u gudo uu bulshada Soomaaliyeed gaarsiiyo in ninkaas kaalintiisii Zambia noloshii Zambia inuu kaalin muhiim ah ka qaatay markii aan ka soo gudubnay wuxuu la wadaagay inuu Zambia dhawaan ka bixi doono una gaari doono ama uu ku wajahnaan doono dhankaas iyo Djibouti halay dhamaan taageerayaasha team Sharma Boy ee ku sugan Djibouti hala diyaar garoobo ونكي وعد كوسو وجهاني ويدعي كرتا إنه بطلان مرو لكن إن توس وزامبي أو دولنا ويدعي كرتا كل هذه الوادي بقول كي بسديت سوء يشي يقرشها لبعتن كاس دي كل وقدر الله وحي إلهي دينك يسكب دلو وجنج أحكوي مع ضمن كتب وهدي يسبدلنا ويدين سوق بين دونا لكن ستاجرياش رير جيبوتي شرم بوي وسو وجهاني هلا يسدياريو ميشاس وحواي كلاكيستي ودن بيسي هذا كورونا وجبجبو شوية كدعايو كالس كأرجع كدعي سوق بما كدعي أنت سامكسو جوجينا برامج كان وحوا شرم بوي إنه وهم هالعليو ننولش زامبيا بقول كالين مهمة كقاطي وأنا محمود شيخ أحمد شيخ آدم جموح وحنا لنا ولكن الله كشرفه هدانا هذا لينت الصومالي أبل وين عن كوهنا أبل كاسنا مع كمية هدانا لينت الصومالي إنه وكوب جدورنا برامج كان أنت سامكسو جوجينا هدانا وشبتهي سبسكرايب تابع جرين لايك تابع وعدسي كومنتينا فكرة كان نقول لك ساعة انت كل من البرامج كلمة وزير كريم مقدس مامو صباح الشيشة بإذن الله جو